السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walba oo asxaabteyda ka mid ah oo janalkeyga ku xiran ama hadda ku cusub waxaan ka codsanayaa muuqaalka inuu dhammaysto. awalan ثانيا inaad dareentaan muuqaalkan sababta aan usoo duubay. xaqiiqatan inaan face ahaan soo duubaan rabay laakiin jaaniskaa ii diiday oo waxaan jaanis u helay inaan keliya uun cod saaro. alxamdulilah bikulli nicma. asxaabta igu xiran dad badan oo idinka mida oo adinka idinku jira waxa weeyaan waa dad qalbi nadiifa, qalbi wanaagsan, jecel inay khayrka ka faa'iideystaan. aniga maanta waxbaan aruurinayaa idinma oranayo laakiin waxaan aqaanaa family Soomaaliyeed ama kabar Soomaaliyeed ee aanan family hoose aanan ahayn oo aanan xitaa isku cid aanan ahayn laakiin dad walaalaha muslimiina aan nahay. maantana 4 cunug haysata, aabahood uu ka xanuunsan yahay, ayadana shaqo aan haynin, ilmo yaryar oo isku nuujisa korinaysa. rabinin social media in barnaamijkeeda la soo dhigo iimaan badan, ninkuna nin iimaan badan uu yahay, ayaduna ay iimaan badan tahay, igu dhaarteen inaysan quutulyoomka bisha ay helaan ilaahay wuxuu usoo qasbo aadana kasoo gaara ma ahane $50 oo meel u saaran ay ku tashanayaan inaynan jirin oo wallaahi igu yiri. laakiin ilaahay baana arsuqa, guri kiraahan degannahay, waa cunna habeenna ma qadno, wamaca daalika wax aan qof ooga tashanoo meel noo saaran ma lahan. way i danqisay arrintooda. waxaa aad haddana iisii danqiyey ilmaha yaryarka ah ee waalkood ee 10 maalmood kadib ama 9 maalmood kadib haddii ilaahay ajashooda uu dhammaystiro oo adduunyada uu ku mideeyo ay iidi doonaan ayagan aan iid haysanin. waxaan jeclaystay qof walba oo muxsin ah oo Soomaaliyeed ee muuqaalkan uu soo gaaro in uu ka caawiyo ilmaha yaryarka ah sida waalkood u farxeen inay u farxaan. maantay gabadha haddii aad shaqo abuur u samayn kartaan, anigu sadaqada la bixinayo dadka la siinayo inta la aruuriyo waxaan horta jeclaan lahaa dadka in ilaahay uu fahamsiiyo. waxaan bariiskan iyo baastadan 1 maalin iyo 2 maalin way dhamaanayaan laakiin in dadkan masaakiinta ah 10 qoys oo kamid ah shaqo abuur loo sameeyo sanad walba wixii la aruuriyo haddii 50 qoys oo kamid ah shaqo abuur loogu sameeyo maalinba maalinta ka dambeysa way sii dhamaanayaan. laakiin haddii la yiraahdo bariis iyo baasta uun hala gado macno ma sameynayso. qofkii muxsina oo walaala oo familka caawin karane dee wuu u banaan yahay. qofkii hadda maalmahan iidda ilmaha yaryarka ah ka farxin kara sida waalkood ay u farxeen uga farxin karana waxaan leenahay miisaankiisa xasanaadka Allah u saaro. anigana micnaha fasax uma haystay ayada hadda inaan muuqaalkan soo bandhigo oo waxaan rabaa inaan sameeyo number aniga aan wato inaan meeshaan idinkugu soo qoro wixii aad ugu tala gasheen ilaahay sida uu idinkaga soo qaado inaan ayada ugu wareejiyo anigoo oranaya dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo sadaqa bixinayaan arkay sadaqadii qofka ugu munaasabsanaa oo heli lahaa in adiga tahaan qiyaasay sidaabaan kuu soo gaarsiiyey. waayo qof ogol in social media laga baahiyo ma aha adinkoon qalad ii fahminin. waa mahadsantihiin.